dhammaan walaalaha ay daawanaya aan ilaahay dartiisa u jeclahay meel walba joogtaan waad salaaman tihiin sidoo kale subax wanaagsan ayaan leeyahay qofka mu'minka ah waa qof mar walba adeegsada hadallada midka ugu quruxda badan ugu wanaagsan mana ahan qofka mu'minka ah qof dadka caaya qofka dadka lacnada qofka dadka hadallo aanan habboonayn ku dhaha إلهنا وحولي عز وجل وقولوا للناس حسنا dadka waxaad ku dhahdaan hadal wanaagsan oo fiican oo qurux badan qofka soo jiidana dabeecadaha nabigeennana kama mid ahan in hadal aanan fiicnayn dadka lagu dhaha midna ogaana hadal walba qofku ku hadlayo waa la qorayaa bal nabigu wuxuu leeyahay kalimatu tayyib sadaqa hadalka wanaagsan waa sadaqa adoo ka socda hadal wanaagsan kana ku dhahay taas tan qof walba ajra lagu siinaya hadal walba xumaan qofka ugu dhaho ugu badal hadal wanaagsan ilaa wuxuu leeyahay idfac billati hiya ahsan waxaad ugu badashaa mid ka wanaagsan baaritaan la sameeyay waxay tilmaamaysaa in qofka hadal wanaagsan ku hadlo oo sitad oo la cadeyn in cala tuul qalbiga galayso